dadweynaha magaalada Burco oo ku bilaan dhar aad u qurux badan ayaa subaxnimadii hore saaka u dareeray tukashada salaada Ciid al-Adha kuwaas oo ku kala tukaday goobo kala duwan ay kamid yihiin masaajidada garoomada iyo dhulka banaan hase yeeshee dadweynaha intooda badan ayaa ku tukaday garoonka kubadda cagta waxaana halkaas tukashada salaada kala qayb galay bulshada wasiirka cadaaladda wasiirka arrimaha dibadda wasiirka wasaaradda gaashaandhiga maamulka gobolka mas'uuliyiin salaadiin iyo culimo jidadka magaalada Burco iyo goobaha lagu cabo bunka iyo shaaha ayaa waxa amray dadweynaha aad u badan kuwaas oo isku salaamay Ciid Mubaarak iyo macaan ciideyn xaafadaha magaalada ayaa waxa hortooda lagu qalayay qaarkoodna ay ku xidhnaayeen wanka loo yaqaan wanka udxada oo maanta kale la gowraco waxaana qiimaha wankani maanta ka qaalisanaa wankii Arafada Sultaan Maxamuud Guuleed Mire maayirka degmada Burco barasaabka gobolka Togdheer iyo wasiirka cadaaladda ayaa iyagu maanta bulshada halkaasi kala hadlay qiyaamku midna waa ka takriimka wax qiyaamo ansaxay midna waa ka salaada qiyaaminta la yiraahdo heestii calanka la tumaya oo dadka la taago oo muusig la saaro waa weynayn macsi loo tukaday muusig waa ilaah qayrkiyo loo tukaday waxa leeyahay arinta hal saxo waxay ka marantay markaa karaamadii aadamuhu isku waafaqay inuu qofka martidii leeyahay waxaan hadalka u leeyahay xaflad baanu ka qayb galnay ama laba xafladood dhawaan waxyaabaha aan sheegayo baa jalsadii ka dhacay aniga fadhiistay anigu ma aaminsani calanka in loo tukaday in ilaah loo tukadaan aaminsan waa la duray waa la ninkaygii dadka ba islahaada ugu hagaagsan yaa la yiri war ninka calankii heestiisii isu taag waayay ma muusig baan anoo ilaahay rumaysan oo ilaahay wax fahansiiyay oo nin muslim oo mas'uul oo ummadan oday waa baan isu taagaa muusig maanta oo kalena waxa weeye waxyaabo badan oo fasahaad uga yimaadaan dawladda haddii aanu nahay istabaha waxa laga mamnuucay baabuurta dhalinyarada ragga iyo kuwa dumarka aan isqabin ama muxrimka isu ahayn ay wada wataan ee dalxiiska loogu tagayo sheekh iyo inta ka shaqeysa bileysku amarka uu haysta magaalada ka baxaya ma jiro haddii ay wax qaldani jiraan culimadu hana tilmaamaan wasiirka cadaaladdu uu fadhiyaa wixii qalad ee ku jira diinteena ka hor imanaya nooc kastuu yahay kitaabka Allah cid walba ka sareeya wixii ka hor imanaya annaguna raali kama noqonayno saxaafadda waxaad moodaa inay aad ugu soo jeesatay inay dadkii muslimiinta ahaa ciridkoodii iyo sharaftoodii iyo karaamadoodiiba ay qaawanaan bannaanka soo dhigaan inay yootan iyo cay aan islaamka ku jirin aynu tiifiyadii maalin walba habeen walba ka dhageysanayno ama ha hadaan hala ceebeynayo culimaawidiinkii ama laha caayo madaxdii karaamada lahayd ama oday dhaqameed kala caynaya inta gole loo soo fariistay golka fuula cay iyo dacaayad iyo qabaa'il loo soo taagan yahay ilaahay ha laga baqo magaalada Burco ayaa waxa maanta ku cusbaa oo bulshadu si weyn u hadlaysay goob cusub oo casri ah oo loogu talagalay in lagu cayaarsiiyo caruurta halkaas oo waalidiintu maanta geeyeen boqolaal caruur ah oo ku ciiday kuna ciyaaraysay qalabka caruurta loogu talagalay oo kala duwan hase yeeshee goobtan oo si weyn ay soo buuxdhaafiyaan caruurta iyo waalidkood ayaa sababay inay kala lumaan caruur iyo waalidkood balse goob loogu talagalay in lagu baafiyo caruurta luntay ama la geeyo kuwa la helay ayaa ka jirtay halkaasi kuwaas oo Home Cable TV u sheegay tirada waalidka iyo caruurta ku kala lumay goobtan ilaa 15 qof oo ciyaala oo ku dhaxlumay meesha ciyaarta ee hoteelku leeyahay imika hal qof baan uga haray 14 kalena waa la kaxaystay ciidkan ayaa hamid bulshada magaalada Burco iyo nawaaxigooda si ballaaran looga ciiday isla markaana ku dhamaaday nabadgelyo iyo farxad Kays Axmed Dagaale Home Cable TV Burco.